هذه ما صدتهاي ودك يوغندا ساشكتي waxaa ku sugan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxaa kaloo jooga xogayaasha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda agaasimaha wasaaradda qorsheynta waxaa joogta wasaaradda ganacsiga waxaa joogta rugta ganacsiga oo kaamila waxaa jooga tiro aan 80 qof ka yareen oo ganacsato Soomaaliyeed waxaa joogta ganacsato ka timid Uganda oo Soomaali ah ganacsato Kenya ka timid ilaa meel kala duwan kulan ay markay u yartaa 500 qof ka soo qayb gali doonaan oo labada dhinac ganacsigooda iyo dawladooda ayaa magaaladan ka furmi doona labada madaxweyne ay ka qayb gali doonaan waxaana la rabaa in la isku furo labada wadan dhaqaalahooda ganacsigooda iyo maalgashigooda ujeedka ugu weyn ee kulankaas bari looga wada hadli doono waa arrinkaas suuragalnimada bal ka waran Soomaali badan baa ku nool dalka Uganda oo ganacsiyo dhismooyin waaweyn ku leh sida ay ku suuragali karto in kuwa Uganda ay yimaadaan Soomaaliya isla markaana maalgashi ay ku sameystaan waxaan hadda ayaan 10 daqiiqo ka hor waxaan ka imid kulan Soomaalida ganacsatada Uganda joogta iyo ganacsatada Soomaaliya ka timid ay ku wada hadlayeen oo ay waayay aragnimada ay isku dhaafsanayeen ganacsatada ugu waaweyn Uganda joogay waxaa joogta gabadha Soomaaliyeed ee warshada sokorta meeshaan iska leh oo iyadu shirka soo xirtay waa loo sheegay in warshadihii Soomaaliya ee sokorta ay suuragal tahay waayay aragnimadeeda iyo caqligeeda inay ku soo saacideyso Soomaalida isla markaasna ay wax ka maalgashato marka ganacsato fara badan oo howlo fara badan halkan ku haya jira warshada ugu weyn ee burka Soomaaliya iska leh marka ganacsato kale oo weyn joogta haasa degan halkan gaadiidka oo transportation-ka badeecadaha daldalamay Soomaali fara badan halkan ku leedahay marka qaar fara badan oo wadanka wax ka warqabaan qaarna Soomaaliga ka lumay marka aad loo wada hadlay labada bariyo soo socota waa la isku dayay in ay waayarnimadooda garaadkooda Soomaaliya ku soo kordhiyaan ganacsiyada la isdhaafsanayo gudoomiye maxaa kamid ah walaal Uganda iyada waxa suuragal u ah waa wadan wuxuu ahaa muddo dheer xasilan oo warshadaha wax soo saara aad iyo aad fara badan leh wadankan laakiin Soomaaliya waxa la isku dayay in wadanka Soomaaliya wuxuu leeyahay kalluun aad fara badan oo Uganda la socoto badda Indian Ocean xuduud la male mana saarna iyadu in fursadaas ay ka faa'iideysato Soomaalidu oo halkan kalluunka Soomaaliyeed la keeno mushkiladda imaan doonto waxay tahay dekadaha iyo maraakiibta kalluunkaas oo daldali karaan waa in Tanzania loo gudbiyo Mombasa halkaas laga jiray laakiin waxa la isku dayay cargo in la isticmaalo oo wadankan kalluunka Soomaaliya la keeno marka dhaqaalaha Soomaaliya maxay ka bedeli kartaa ayaad is leedahay hadii labada dal ganacsigooda isku furmo waxaan ganacsigu waa waxa asaaska u ah dhaqaalaha wadamada oo wadamada markay ganacsi isdhaafsadaan hadii waxbay kala faa'iidayaan Soomaaliya haday hesho fursad ay wadankan wax ku keento oo kalluunka mid yahay wararka la maaragtay socda cusbadu ka mid tahay waxa weeye ganacsatada Soomaaliyeed baa faa'iido badan ka heli dawladda cashuur fara badan bay ka heli dadka Soomaaliyeedna shaqo fara badan bay ka heli halkaasna waxa ka soo bixi doonta dhaqaalaha wadankan ugu kobca madaxweynaha dawladda Soomaaliya oo hadlay waxa uu sheegay in ganacsatada reer Uganda ay fursad u siin doonaan inay maalgashtaan beeraha arrinkaasi bal ka waran hadii ay suura gasho Soomaaliya oo inta badan sanadihii dambe aan wax beeranayn ma isleedahay wax soo saarka dalka markale ayuu dib u noqon karaa walaalmaan Uganda aad iyo aad bay maaragtay u fiican tahay wax soo saarka beeraha waxyaalo fara badan oo beerahooda ka soo go'ayna dhoofisaa kulay Soomaalidu way aragnimada iyo farsamooyinka beeraha wax soo saarka Uganda ayay ka faa'iideysanaysaa laakiin Soomaalidu ayaga ku filan inay beerahooda maalgeliyaan oo beero fara badan waxa weeye waxyaalaha hortaagan amniga kamid ah amniga xal loo helo waxaan qabaa inay Soomaalidu ayadu ku filan tahay inay maalgeliyaan beerahooda waa gartay gudoomiye waxa jiro dadaalo muddooyinkii dambe aad wadeen oo ku aadan in waxyaabaha gudaha laga soo saaro suuqgeyn dibadda ah loo yeelo si ganacsatada ama beeraleyda ay dhiirigelin ugu noqoto marka arrinkaasi laftirkiisa qayb ma ka yahay isbedelka aad wadaan walaal halkan waxaa joogta hay'adda tayadhowrka Soomaaliyeed ayaa jooga madaxooda farsamada ugu sarreeya halkan jooga
in la yidhahdo cali ilmundo. waxaa kaloo kulan kasoo qaybgeli doona hay-adda tayadhowrka ee waddanka uganda. soomaaliya dhoofka inay wax dhoofiso waxaa hortaagan waxa ay tahay in ay standardka caalamiga ah tayada waxa la dhoofinayo in la gaarsiiyo. soomaaliya hay-addi waa la dhisay. soomaaliya waxay qaadatay standardka east africa. in hadda kadib dadaal xoog leh waxaa la saari doonaa in badeecadaha soomaaliya kasoo go-a oo fara badan oo runtii beeraha u badan in fursad loo helo in la dhoofiyo. awal waxaa hortaagnaa lama aqoonin waxaan standardkooda iyo waxa ay ka kooban yihiin iyo sida loo beeray. caalamka marka cabsi fara badan baa wax soo saarka beeraheena mooska iyo sisinta iyo liinta ka haystay. hadda marka waxaa imaan doonta haddii tayadhowrka la helo standardkiina la helo shirkada adduunyada matala tayada soomaalida wax soo saarkoodana la helo in dhoofka soomaaliya uu kor u kaco oo waxa beeraha kasoo go-a iyo xoolaha nagaba ay baxaan ayaa rajo weyn laga qabaa. marka baahida dowladda idinkuba aad aragteen maxay ahayd oo ku aadan in iskaashi ganacsi lala sameeyo dalka Uganda? saa la socoto Uganda muddo dheer baa waxaa amniga Soomaaliya dadka shaqeynaya amisoomay ka mid tahay. xiriirka Soomaaliya iyo Ugandana 30 sano ka hor mar walba wuxuu ahaa xiriir wanaagsan. keliya dad Soomaaliya oo Uganda degan oo ka dhex ganacsada ayaan hore u jirin. hadda ganacsato waaweyn oo hantiilayaalaha waddankan degan oo Soomaali ah sidaas darteed sida Soomaalidu hadda ay Kenya uga ganacsato waxaa suuragal ah in Uganda naftirkeeda ay ka ganacsato. shuruucda ganacsiga iyo warqadaha ganacsiga dadka Soomaalida mid ka hortaagan lama arko. marka ganacsatada Soomaalida halkan joogta hadda labadan beri waxay indhaynayaan wixii ganacsiga xoog leh halkan la maalgashan karo dhinacan Uganda naftirkeeda. wadamada deriska sida Kenya iyo Ethiopia Soomaalidu aad bay ugu ganacsadaan. wadamada kale ee Afrikana haddeer ayaad moodaa in ay ku baraarugayaan. marka arrinkaasi dhaqaalaha guud ahaan Soomaaliya haddii Afrika guud ahaan aan la yeelano xiriir ganacsi maxaa iska bedeli kara? soddonka sano ee Soomaaliya waddankeedu dhibku ka jiray dadka Soomaaliya waxay ku qasbanayeen si ay u noolaadaan dee wadamada noo dhow Afrikaanka iyo wadamada naga fafooda kulli South Africa kamid tahay inay ka ganacsadaan. ganacsiguna Soomaalida adduunka hadda waa waxa uu aqoonsan yahay inay tayada ugu wanaagsan ee dadka Soomaalida ay leeyihiin waa fakarka iyo horumarinta ganacsiga. oo wadamo waxaaba jiraba dadka Soomaalida ka faa'iideysta sidii dadkooda u bari lahaayeen sida loo ganacsado. marka runtii wadamo aad u fara badan baa Soomaalidu hanti fara badan iyo ganacsi fara badan ay ku leedahay. waxaas oo dhan haddii Soomaaliya waddankeeda uu amnigeeda soo hagaago waddanka Soomaaliya si toos ah si dadban uga faa'iidi doona insha Allah. aad baad u mahadsantahay gudoomiye. Cabdi Abshir Dhoore agaasimaha rugta ganacsiga Soomaaliya ayuu kaasi ahaa oo waraysi siinayay telefishinka SMS Somali TV isagoo ku sugan magaalada Kampala ee dalka Uganda halkaas oo maalinka bariya uu ka furmi doono shirka isdhaafsiga ganacsiga Soomaaliya sidoo kale Uganda. Xayaat Market wax kastoo dab la saarta dhar midkaad isku duubto dawadii la liqaayay dukaamaysi dhamaanba xayaat baa la diyaariyay dooqaadu yaanu ku ciilinay degdeg gaarka adeego dariiqan mari waayay roob ayay igu da'ay daruusteedii la laabiyo wax kastoo daninayso dalbo oo gurigaada daqiiqad bay ku imaaneen dalabkaada caddayso ku darso dalabkaaga diristii lacageed iyo xawaalaadka dalkeenna bangiyaa ku diyaarsan daah iyo sheeko wanaagga haddaad doonto fadhiiso shaqaalaha u diyaarsan durbo ku iman doona diiran oo ku fahmaya السلام عليكم وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وندوها ولا الدلب كي من سوجاري. دلب كاري ولا سوجاري. آدي هذا أمها سنتين يسودي إن شاء الله. إن شاء الله وكوسو هذه ناس الله سيهم. هذا أمها سنتين ولا thank you. xayaad waa ina deeqday wixii intaasi dheer ee faahfaahinana kala xidhiidh telefoonnada shaashadda kaaga muuqda ama la soo deg abka adeeg.com